kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka rajo qaran TV qodobada aad ku daawan doontaan warka rajo qaran TV waxa ka mid noqon doona madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug garabka cadaado oo shaaciyay in dowladda Soomaaliya ay ku fashilmantay xalinta khilaafka u dhaxeeya madaxda Galmudug dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka socda magaalada Kismaayo Soomaali dil iyo dhaawac loogu geystay Koonfur Afrika dowladda Soomaaliya oo ka qayb galaysa shir maanta ka furmaya dalka Ruushka Mareykanka oo faahfaahiyay duqeyn lagu dilay sarkaal ka tirsanaa Daashta Soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo kulan la qaatay saraakiisha ciidanka booliska askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya oo goordhow qof shacab ku dilay isgoyska Sanaa ee Muqdisho DB Wall oo shaacisay caqabadaha ka haysta balaarinta dekedda Berbera al-shabaab oo lacag dheeraad ku soo rogay shacab ku nool degmo ay maamusho dowladda federaalka Somaliland oo soo faagaysa xabaal wadareedyada dad la dilay xilligii Jaal Maxamed Siyaad Barre xildhibaan fiqi oo ka waramay wixii ka dhacay xarunta baarlamaanka iyo hadalkii farmaajo intaasi waa qodobada aad ku daawan doontaan warka rajo qaran TV haatanna u diyaar garooba isagii oo fidsan halkani waa rajo qaran waa channel news and information is all over the world. What are you talking about? Look, وأقول الأخبارات أنا أعرف اللغة العربية. شوف الأخبارات العالمية أتطور سماقرن مركب أقول سبسكرايب ده إيه كذا وولي هذا الصور كان مشغول كأي حاجة بس هذا بقول بدي سبسكرايب ماذا هذا واحد سبسكرايب بحق أي حاجة لو راعي لو هذا مشغول كتاعي سماقرن مركب سبسكرايب ليه سماقرن ورجع قرن بالي أنا أريد كل شيء إنه كوينه هذا نقول له هذيك كلام صار قرن سادي نسقنا رجع قرن كل حدنا سأعطيها شو every word about every current news all over the world باكسين أوتا ومالنيمة ثلاثة تاريخنا waxay ku beegan tahay 16 bisha Afraad sanada 2019 aynu ku bilownay askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya ayaa goordhow qof shacab ku dilay isgoyska Sanaa ee Muqdisho dilka ruuxa loo geystay ayaa la sheegay inuu ahaa qof aan maskax ahaan bad qabin sida ay sheegayaan goobjoogayaal ha yeeshee ma jirto faahfaahin kale oo laga helay ehelkiisa warar hoose ayaa sheegaya in askarta iyo ruuxa la dilay oo dhex maray muran kadibna uu mindi ku muday mid kamid ah askartii ku sugnaa kontaroolka Sanaa waxaana intaa kadib rasaas lagu furay ruuxa shacabka oo u geeriyooday magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay waxa ay martigelinaysa dilalka loo geysanayo dadka rayidka dhinaca kalena madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Xaashi Carabi ayaa ka hadlay waxa keenay khilaafka hoggaanka sare ee dowlad goboleedka Galmudug kaasi oo curyaamiyay shaqooyinkii maamulkaasi isagoo warbaahinta la hadlayay ayuu sheegay in xilligan aysan jirin khilaaf hoggaan oo si gaar isaga kala dhaxeeyay madaxweyne Xaaf ha yeeshee la isku hayay 14 kamid ah qodobadii heshiiskii Djibouti oo aan la fulin dowladda Soomaaliya ayuu sheegay in ku fashilantay xalinta khilaafka Galmudug ama go'aan rasmi ah ay ka qaadato cid qaldan hoggaanka maamulka Galmudug ha yeeshee ay wali wax socon laayihiin dhinaca kalena ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta waxa ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wadaan deegaano hoostaga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ciidamadan ayaa si gaar ah waxa ay dhaqdhaqaaqyada ugu wadaan deegaanada baarka ee duleedka magaalada Kismaayo halkaas oo shalay gelinkii dambe uu dagaal culus ku dhex maray ciidamada Jubbaland iyo kuwa al-shabaab dagaalkan ayaa yimid kadib markii al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada Jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka baarka waxaana saraakiisha ciidamada ay xaqiijiyeen in weerarkaasi iska caabiyeen dad ku sugan deegaanka baarka ayaa ay sheegayaan in dhaqdhaqaaqyo ciidan ay wadaan kaasi oo si weyn looga dareemay deegaanka isla markaana mararka qaar la maqlayo rasaas goosgoosa geesta kalena kooxo burcad Koonfur Afrikaan ayaa xalay saqdi dhexe waxa gudaha dalkaasi ay ku dileen muwaadin Soomaaliyeed oo kamid ah Soomaalida ganacsiga halkaasi ku leh iyagoo sidoo kale dhaawacay mid kale muwaadinka Soomaaliyeed ee la dilay ayaa waxa lagu magacaabi jiray Muqtaar Cumar waxaana lagu dilay magaalada King Williamstown oo hoos tagta Eastern Cape ee dalkaasi Koonfur Afrika waxaana xilligii la dilayay uu ku sugnaa goobtiisa ganacsi kooxdii burcad Koonfur Afrikaanta ay dilka u geystay muwaadinka Soomaaliyeed ayaa la sheegay inay qaateen lacag u tala goobtiisa ganacsi iyagoo intaasi kadib goobtiisa ka baxsaday dhinaca kale burcad Koonfur Afrikaan ayaa weeraray goobo ganacsi ay Soomaalida leedahay oo ku yaala xaafadda Mayfair ee magaalada Johannesburg waxayna dhaawaceen muwaadin Soomaaliyeed oo magaciisa lagu soo gaabiyay Ismaaciil iyagoo sidoo kale boobay hantidii taalay goobtiisa ganacsi dalka Koonfur Afrika ayaa todobaadyadii la soo dhaafay waxa ka jiray culays dhinaca amniga oo soo wajahay Soomaalida isla markaana dukaanadooda la boobayay waxaana xusid mudan in
habeen ka hor isla dalkaasi koonfur afrika lagu dilay muwaadin soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray nuur dheere. dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa lagu wadaa inay ka qayb gasho shirka shanaad ee dowladaha carabeed iyo ruushka kaas oo maanta talaadaha ka furmaya magaalada Moscow ee caasimada dalkaasi Ruushka. shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad kuwaas oo maalin ka hor gaaray magaalada Moscow ee dalka Ruushka. madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa la filayaa in shirka maanta ka furmaya magaalada Moscow oo si rasmi ah u furo waxaana shirka diiradda lagu saari doonaa sidii ay u wada shaqayn karaan dowladaha carabeed iyo dowladda Ruushka. Soomaaliya ayaa shirkaasi waxa uu noqonayaa shirkii labaad oo ay ka qayb galaan waxaana kankii ka horeeyay uu ka dhacay sanadkii 2017 wadanka isu taga Imaaraadka Carabta. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo xubnaha wafdiga la socda ayaa sidoo kale waxay kulamo la qaadan doonaan inta ay ku sugan yihiin wadanka Ruushka oo fuud kala duwan oo isugu jira wafdiga carabeed iyo kuwa Ruushka iyagoo kala hadli doona arrimo quseeya Soomaaliya. geesta kalena taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaan Africom ayaa faahfaahin ka bixiyay duqeyn dhinaca cirka oo ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Bari kaas oo ay ku beegsadeen xubno ka tirsan Daeshta Soomaaliya. qoraal ka soo baxay taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa lagu sheegay in 14 bishan duqeyn dhinaca cirka ay la beegsadeen gaari u saarnaa hogaamiye ku-xigeenkii labaad ee Daeshta Soomaaliya Cabdixakiin Dhoqob xilli ay marayeen deegaano xiriiriya gobolka Bari isla markaana weerarkaas ay ku dileen. Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in Cabdixakiin uu ahaa sarkaal Daesh ee soo abaabula weerarada ka dhaca deegaanada Puntland sidoo kale uu ka qayb qaatay xaalufinta waxyaabaha kheyraadka ee laga helo deegaanada Puntland oo sida ay hadalka u dhigeen. waxaan sii wadaynaa taageerada aan siino Soomaaliya ee dhinacyada ammaanka dhaqaalaha iyo horumarinta. waxaan kordhinaynaa weerarada aan la beegsanayno xarumaha kooxda Daesh si ay u yaraato awoodooda waxaana bartilmaameedsan doonaa kuwa fuliya weerarada xagjirnimada ayuu yiri agaasimaha dhinaca ammaanka Mareykanka u qaabilsan qaaradda Afrika General Greg Olson. sidoo kale duqeyntaas ay Mareykanka sheegeen in lagu burburiyay gaarigii uu saarnaa Cabdixakiin Dhoqob balse ay baaritaan ku sameynayaan in dad rayida ay wax ku noqdeen. Mareykanka ayaa kordhiyay duqeymaha dhinaca cirka ee uu ka fuliyo Soomaaliya kuwa oo ay la beegsanayaan xarumaha kooxda Al-Shabaab iyo Daesh. waxaana toddobaadyo ka hor madaxweynaha Mareykanka uu siixay muddo kordhin loo sameynayo ciidamada Mareykanka ee ka howlgala Soomaaliya. geesta kalena maamulka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa ka hadlay lacag dheeraad oo shacabka ku dhaqan degmada Ceelwaaq ay ku soo rogeen ururka Al-Shabaab. shabaab ayaa lacagtaasi ku soo rogay ganacsatada ku nool degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo iyagoo ka doonaya inay bixiyaan lacagta ay ugu magac dareen zakawaad. gudoomiye ku-xigeenka degmada Ceelwaaq Saal Macalin Cali oo saxaafadda la hadlayay ayaa sheegay in dhammaan ganacsatada deegaanka lagu soo rogay lacagaas iyagoona ay ka soo horjeedaan inay dadka deegaanka bixiyaan lacagaha ay shabaab doonayaan. waxa uu sheegay in Al-Shabaab tuulo kasta oo degmada hoos timaado ay ku soo rogeen inay bixiyaan dadka ku nool lacag gaaraysa $2,000 haddii ay bixin waayaanna ay dhibaato la kulmi doonaan. iyagoo intaasi ka duulaya ayuu sheegay inay soo rogeen bandow ay ammaanka magaalada ku xaqiijinayaan si looga hortago handadaad lagula kaco shacabka ku nool degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Al-Shabaab ayaa inta badan lacago ka qaada shacabka ku nool magaalooyinka ay maamusho dowladda Soomaaliya taasi oo nasiib daro weyn oo u soo hoyatay dowladda Soomaaliya maadaama ay ku fashilmeen xaqiijinta iyo sugidda ammaanka shacabka. geesta kalena Somaliland ayaa maanta ku dhawaaqday inay magaalada Hargeysa laga helay 2 xabaal wadareed kuwaasi oo ay sheegeen inay ku aasan yihiin dad ay laayeen milatarigii Soomaaliya xilligii 80maadkii. guddiga baaritaanka xasuuqyadii u qaabilsan Somaliland ayaa sheegay inay ka heleen 2 xabaal wadareed xaafadda 150 ee waqooyiga magaalada Hargeysa oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay ka wadeen baaritaano. agaasimaha guddiga baaritaanka Somaliland Axmed Ciise ayaa faahfaahin ka bixiyay xabaalaha ay heleen waxa uu yiri baaritaankii xasuuqa aynu wadnay 4 bishan waxaan xaafadda 150 ee Hargeysa ka helnay 2 xabaal wadareed. 2 xabaal wadareed waxa iyagu ku aasan dad iyagu tiro badan beerta ilmadama. waxaanu ka tacsiideynayna dadkoodii halka lagu laayay ee iminka lafahooda hortooda dib loogu soo saarayo. Axmed Ciise ayaa waxa kale oo uu sheegay in marka dibadda loo soo saaro lafaha dadka xabaal wadareedyada ku aasan loo sameyn doono aas qaran. dadkaasi wanaagsan baa loo aasi doonaa marka lafahooda la soo saaro waxaana loo sameyn doonaa aas qaran ayuu yiri Mr. Ciise. geesta kalena madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay kormeer ku tagay xarunta taliska booliska Soomaaliya isagoo kulan gaar ah la qaatay saraakiisha ciidanka booliska. madaxweyne Farmaajo ayaa kormeeray qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay taliska waxa uu saraakiisha kala hadlay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta ka dhaxaysa booliska iyo shacabka si loo xaqiijiyo amniga caasimadda. taliyaha ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya Zakiya Xuseen Axmed ayaa sheegtay in madaxweyne Farmaajo uu ka dalbaday saraakiisha booliska inay kordhiyaan howlgallada amniga lagu xaqiijinayo. taliyaha Zakiya ayaa sidoo kale sheegtay in madaxweynaha uu uga digay saraakiisha booliska in lagu xadgudbo shacabka sidoo kalena lagu kaco masuq waa sida ay hadalka u dhigtay. geesta kalena xildhibaan Axmed Macalin Fiiqi oo kamid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo la hadlayay mid kamid ah warbaahinada gudaha Muqdisho ka howlgala ayaa sheegay shirkii Sabtida su'aalaha lagu weydiinayay madaxda hay'adaha amniga. waxa uu naxusay in su'aalihii la weydiiyay hay'adaha qaarkood ay ahaayeen kuwa lagu qanci karo halka qaarna aan lagu
qanci karin xildhibaan fiqi oo arrinkan ka hadlayay waxa uu yiri kulanku waxa uu ahaa kulan waayahan oo dhan carabka lagu hayay oo buuq badan ka dhaliyay baarlamaanka waxaana la sii shaaciyay kulanka albaabada ay u xiran yihiin oo saxaafadu dibadjoog ka tahay su'aalana lagu weydiin doono taliyayaasha ciidamada afar taliye iyo ku-xigeenadooda iyo labada wasiir gaashaandhigga wasiirka amniga iyo labada wasiir ku-xigeenadooda intaas kulan la isugu keenay ay joogeen xildhibaanaduna ay ku weydiinayaan su'aalo xura oo furan amniga amni darrada jirta iyo tillaabooyinka lagu siinayo amniga waxay bixiyeen jawaabo kuwaasi oo lagu qancay iyo kuwa aan lagu qancin qaarna lagama jawaabin oo dib ayay ula laabteen ayuu yiri xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ugu dambeyn xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa hadalkiisa ku soo gabagabeeyay in dadka maanta dhiban ay yihiin dadkii shalay u soo banaabaxay madaxweyne Farmaajo markii la doortay mana jirin shacab cid qasabtay ma ahan markii ay dareenkooda muujiyeen in la ciqaabo markii ay taageeraan lagu faano dhinaca kalena maamulka shirkadda DP World ee gacanta ku haya dekedda magaalada Berbera ayaa ka hadlay caqabado ku soo kordhay oo ka hortaagan balaarinta dekedda Berbera madaxweynaha Somaliland ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Berbera isagoo oo ka qayb galaya munaasabado ka dhacay gudaha dekedda Berbera oo isbedelo loogu sameeyay maamulka shirkadda DP World ayaa shaaciyay in ay haatan hakiyeen dhismaha iyo balaarinta dekedda magaalada Berbera arrinta hakinta ayaa ka dambeysay markii maamulka shirkadda ay sheegeen in dhismaha ay sameynayaan uu gaaray kaadka shidaalka dhuumaha maraakiibta ka soo qaada ee badda Kurikaban madaxweynaha Muuse Biixi oo ku sugan magaalada Berbera ayaa la filayay inuu go'aan ka gaaro shaqo joojinta shirkadda DP World maadaama hore loogu heshiiyay in shirkadda Berbera ay balaarin weyn lagu sameeyo laakiin maamulka DP World ayaa cadeeyay in loo baahan yahay in xal laga gaaro kaydka dhuumaha shidaalka oo hadda ay ku dhawaadeen intii ay wadeen balaarinta dekedda magaalada Berbera waxaa la filayay in madaxweynuhu uu saamin doono dhul kale oo dhuumaha shidaalka loo raro maadaama uu maamulka shirkadda soo jeediyay in ay dhuumaha aad ugu dhow yihiin halka la doonayo in lagu balaariyo dekedda tan iyo markii shirkadda DP World ay la wareegtay maamulka dekedda Berbera ayaa waxaa taagnaa caqabadaha dhismaha dekeddaasi ka soo wajahaya dhuumaha shidaalka qaada Muuse Biixi ayaa arrintaasi kulamo kala yeeshay waxgaradka iyo ganacsatada wax kala soo dega dekedda magaalada Berbera gudahaan warkii aad ka daawanaysaan Rajo Qaran TV qiyaari wanaga inta si aad u heshaad buuxi warar ku soo kordhagayga Soomaalida iyo daafaha caalamka subscribe saaro Rajo Qaran TV